maslaxo iyadoo aad u murugaysan ayaa laga soo daayay xabsi ay xalay liinta ku dhaxabtay lacagihii tirada badan ee loo aruurshay ayaa la qorsheeyay in Catoshare qayb laga siiyo muuqaal halistiisa watana waxaa laga duubay Gaduudow iyo Catoshare muxuu yahay muuqaalka halistiisa wata intaas iyo in ka badan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal balse marka hore waxaan idinka codsanaynaa in muuqaalka aad follow dhahdaan siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku u gaaro saaxiibo badan haddii aad nagala socotaan dhinaceena YouTube waxaan idinku xushmeenaynaa in janaalka subscribe dhaataan oo gambaleelka furataan si ay idinkugu soo dhacaan muuqaalada aan halkan ku baahino waa hagaag waxaa xabsiga laga sii daayay maslaxo iyadoo aad u murugaysan oo calool xumaysan oo intiina ka dhamaatay maxaa gabadhan loo rafaadinayaa dhawaan ayay ahayd markii ay heshay adduun lacageed kor u dhaafaya sida la sheegay $50,000 kaas oo ay u aruuriyeen YouTuber caan ah Catoshare ayaa markii uu arkay in gabadhan lacag waaliya loo aruurshay waxa uu soo duuba muuqaal uu ku sheegay in xaaskiisa maslaxo uu qabo dadkuna beenta iska dhaafaan hase yeeshee dagaal aan loo kala harin ayaa bilowday kadib muuqaalkii oo sii daayay Catoshare ku aadanaa maslaxo in uu qabo gabadhan oo loo kala kiciyo bara bulsho oo cusub ayaa maalmaha ku dhaganeeday Catoshare iyo qoyskiisa inkastoo asigaba uu ka liidan si kastaba haatee maanta ayaa la sii fasaxay iyadoo aad u murugaysan kadib markii ay sheegtay in xalay lagu dhex cadaabay xabsigii ay ku xirneeday waxay sidoo kale tilmaamtay in lacagaheedii qaar loo xugmiyay ninka lagu magacaabo Catoshare waayabe maxaa ka gala Catoshare dhaqaalaha intaas la eg ee loo xugminayo haddii ay kala tageen si kastaba ha ahaatee muuqaal halis ah ayaa laga duubay geesta kale Catoshare iyo Gaduudow waxa ay sameynayeen arrin dadku ay la yaabeen taas oo fajac iyo anfariir ay ku noqotay dhinacyadu inkastoo muuqaalada laga duuba labadan dhinac uu ku soo aadayo xilli maslaxo ay ku dhex rafanaysa xabsiyo kamid ah xabsiyada gudaha caasimada ayaa waxaa la tilmaamay in hadallo waawaana lagu daayo maslaxo taasi oo la sheegay in laga qaadi doono $25,000 si uu Catoshare kaga haro warkan lama hubo saaxiibayaal ee la xiriira in qayb kamid ah lacagteeda Catoshare lagu wareeji doono hase yeeshee wararkan ayaa ku baahay saacadihii ka soo gudubnay baraha YouTube ee bulshada si weyn ay u isticmaalaan xilligan iyadoona xusid ay mudan tahay in labada reer gaar ahaan waalidiinta Catoshare iyo maslaxo ay isku furfurteen waad ku maasantiin dhammaantiin daawashada muuqaalkan ee saaxiibayaal noo share gareeya aragtidiinana waa noo muhiim ee noogu reeba qaybta hoose commentiga